Sheekh Cali Maxamuud Xasan Sheekh Cali Wajiis oo shirkan ka hadlay ayaa sheegay in culimada Soomaaliyeed ay rajo badan ka qabaan dawladdan iyo dadaalada ku aadan la dagaalanka fikradaha looga been abuurtay diinta Islaamka. waxyaabaha hadda maanta dawladda ay aad ugu taageersan yihiin especially adiga hogaankaaga oo ay si gaar ah iska warsadaan waxaa ka mid ah inay aad ugu qanacsan yihiin kaalinta firfircoon oo dawladdu uga jirto dalka in argixisada laga xidhayo qodobka ugu daran oo dalkan la degan waa kaas waa caqabad ku ah dawladnimada waxa kaleeto ay aad ugu faraxsan yihiin dawlad wanaagga iyo arrimaha musuqmaasuq la dirarka iyo midnimada dalka iyo soo jeedinta ummadda Soomaaliyeed oo runtii kalsooni badan ay gelisay kaalinta aad ku hogaaminaysa dalka dhinacaas marka laga fiiriyo. Gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed Sheekh Bashiir Axmed Salaad oo si faahfaahsan uga hadlay kulankan ayaa wada shaqaynta dawladda iyo culimada ka muujiyay rajo badan isagoo ka codsaday in la joogteeyo kulamada madaxda dawladda iyo culimada si dhibaatooyinka jira loogu wajaho aragti midaysan. waxyaalaha keeni kara in diinta dawladda mas'ala waxa ka mid ah in aan kulamo culimadu ay leeyihiin iyo dawladdu la qabto oo joogta bishii hal mar oo kale waxaa ka mid ah in dawladdeena iyo xafiisyadeeda iyo maamuladeeda aan ka dhex aragno in diintii ay xurmo ku leedahay oo shacairtii la oogahayo. afayeenka golaha guud ee culimada Soomaaliyeed Sheekh Cabdulqaadir Soomo oo isna hadal ka jeediyay shirka ayaa sheegay in dawladda federaalka ay xilligan haysato culimo midaysan oo gacan ka geysan kara la dagaalanka argagixisada iyo dib u heshiisiinta. dawladdu hasta marka dawlad culimadeedu ay u midaysan tahay nasiib uma dhabo culimada ku midaysan inta dhib cadaweyna waa khawaarij dalka aan ka saarno culimada tarafka ku taagan waa labo codsiga culimada xubinta codsiga culimada waxa waaye in aan ka run sheegno waxa noola aamino diinta ah oo diinta islaamka sida ay u tahay tadbiiq kulli ah loo sameeyo haddii dawladda tahay iyo haddii shacabka tahay iyo haddii culimada tahay inaan kulligeyna aan u ahaano dad adduunka la keenay alla keenay aan lagala tashan lagana wadaago hor tashan mas-uuliyad loo dhiibay mas-uuliyadaas loo dhiibay ay tahay in kitaabkaas ilaahay ay ku dhaqmaan. Sheekh Yuusuf Cali Caynte gudoomiyaha majmac culimada Soomaaliyeed ayaa ku bagaadiyay dawladda Soomaaliyeed waxqabadka ay la timid muddada kooban ay jirtay oo uu sheegay in ay mudan tahay in lagu garab istaago. aniga waxaan ila xukuumadihii soo maray markii burburka dhaca kadib laga soo bilaabo Cabdulqaasim laga soo bilaabo ilaa lagu yimaado afar walxaato ay xukuumadan ay samaysay dawladda samaysay waxa ay samaysay dawladani oo koowaad maalinta ay timid ilaa maanta ay joogto mushaarka shaqaalaha waxaa nagu maqaano ah oo macluum 28 laga bilaabo ilaa bisha 30 laga gaaray in la baxsho dawladda samaysay ma jirto. qodobka labaad wax alla wixii maxaabiis adduunka ku uray ay jirsheen markaasay koox u keeneen hadday hindiya tahay hadday liibiya tahay hadday yaman tahay hadday meel kale tahay dawlad ku guulaysatay oo waxaa samaysa ma jirto ayagoo hal sano iyo bilo ay joogaan madhex. qodobka saddexaad dawladda waxaa diray khaliijkaa diray khaliijka markoo diray waxay yidhaahdeen hadda alla kuu roon yahay dawladdu waxay tiri annagu dhexdhexaadan ka nahay dadkaas walaalahayn. qodobka afaraad Soomaaliya waxaa lagu yaqaan taariikhda inay tahay 190 dawladood midda ugu hooseyda xagga musuqmaasuqa ama ugu sarreysa inay tahay oo dawlad ka sarreysa musuqmaasuqa aysan jirin. marka xukuumaddan ay timid waxa weeye waa shaqay qabatay ilaa laga gaarsiiyo in la yiraahdo deynta Soomaaliya waa laga dhaafaya. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa gabagabadii kulanka waxa uu mahad celiyay culimada Soomaaliyeed waxaana uu ka hadlay muhiimadda ay leedahay in culimada Soomaaliyeed awoodooda isugu geeyaan ka hortagga faafinta fikradaha qaldan. culimada Soomaaliyeed runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay caawana halkan ku kulano. sababta caawa halkan isugu nimid sababta waxay tahay marka koowaad in culimada Soomaaliyeed ay midoobaan oo gacmaha is qabsadaan bacdana dalka uu meel adag marayo
qolooyin islaam sheeganaya ay diinteenii qalloociyeen markaad isku duuban tihiin oo culidiina aad sugaysaan waxaa xaqiiqo noqonaysa inaan si xaqiiq oo dhab ah inaan uga hortegi karno oo waxa ay dadka u sheegaan oo aanan diin isaan ahayn aan dadka u sheegi karno inay yihiin dadkan dad xaqiiqatan khawaarij inay yihiin. madaxweyne farmaajo ayaa sheegay in dowladdu ay ku tiirsanaan doonto culimada lana adkeyn doono xiriirka u dhexeeya culimada Soomaaliyeed isagoo ka codsaday mashaayikhda inay door ku yeeshaan wacyigelinta bulshada dhinacyada xoojinta amniga, bixinta canshuuraha, ilaalinta midnimada iyo la dagaalanka musuqmaasuqa. xiriirka dowladda iyo culimada inaan adkeenno taasna runtii wax naga maqnayd yahayd anigana waa ka shaqeynayaa inaan adkeenno xiriirkeenna waxaan ka codsanayaa mar kale annaga waajibaadkeenna waa qaadanaynaa oo ah ammaanada noo dhibteen oo aad noo aaminteen inaan idin hayno sida uu sheekh yuusuf sheegay annaga qaybteena waa qaadanaynaa idinkana qaybteena waa qaadataan oo dadka aad ku wacyigelisaan dowladda in la taageerada aan ku soo celinna mar walba amniga keliya maaha amnigu waa kow amni hadduusan jirin wax kaloo oo jiri kara ma laha waan u wada istaagno amniga tan labaad waxaa loo baahan yahay dadka inaad ka wacyigelisaan in la bixiyo canshuuraadka masaajidda marka laga akhrinayo khudbooyinka in lagu adkeeyo dadka canshuuraadka in la bixiyo. madaxweyne farmaajo ayaa u muujiyay culimada Soomaaliyeed sida ay dowladdu ugu helan tahay dhageysiga talooyinka culimada iyo taageerada ay u muujiyeen. Ali Baashi Cabdullaahi, madaxtooyada Soomaaliya.